tartankan waxaa ka qayb geli doona 20 dugsi oo dugsiyada sare ah kuwaas oo ay soo xushay wasaaradda waxbarashadu tartankan ujeedada ugu weyn ee Saamiya Foundation iyo barnaamijka Daaris uu ka leeyahay marka koobaad waxa weeyaan sidii loo dhiirigelin lahaa akhriska marka labaad ujeedada uu barnaamijka Daaris ka leeyahay tartankan waxa weeyaan in la dhiirigeliyo ardayda dugsiyada sare بسم الله الرحمن الرحيم saddexdii qof ee ugu dambeeyay ee goorahan bal sugay baynu ku dhawaaqi doonaa waxa ugu sareysay Mulkhayr Maxamuud Cabdi Mulkhayr soo kacdo Mulkhayr soo dhow qofka ku xiga waa Yaxya Maxamuud Yaxya Muuse Ducaale Yaxya soo kaco qofka saddexaad ee ugu dambeeya waxa weeyaan Cabdirashiid Axmed Saruur barnaamijka Daaris wuxuu soo gaarsiiyay tartan kooban oo loogu talagalay bisha Ramadaan kaas oo lagu tartamayo بسم الله الرحمن الرحيم waxaa soo baxday natiijadii sideedii arday ee ugu dambeeyay ee wareegga labaad ee dugsiga ka dhacaya ku soo baxay sideedda arday waxaa laga doonayaa 3 arday waxaan ku dhawaaqi doonaa marka magaca guuleystaha koobaad ka labaad iyo ka saddexaad saddexda arday marka dugsigan idinku matali doonaan tartanka wareeggiisa labaad kaalinta koobaad waxaa ku soo baxday Amaal Cabdiqaadir Maxamuud صعب kaalinta labaad waxaa ku soo baxay Yaxya Xasan Cabdi kaalinta saddexaad waxaa ku soo baxday Saynab Cabdiqaadir Cali sida waxaa ku soo baxay saddexdii arday ee idin matali lahaa dugsiga Maxamed Aadan Sheef waxaan ku soo dhaweynayaa kelmad maamulaha dugsiga Axmed Yuusuf horreyn ilaahay baa mahad iska leh isugu keenay halkan inoo suuro galiyay inaynu kulankan insha Allah halkan ku qaadano waxa kale oo ugu mahadnaqayaa ugu horreyn daddiyaasha barnaamijka Daaris oo runtii aan ugu cusbayno markii labaad ay noo yimaadeen insha Allah bismillaahir kariim aad iyo aad baa u mahadsantiin dhamaantiin Daaris organization-ka tartanka inoo wada kulli halkan arday fara badan oo aqoon iyo akhlaaq lagu tuhmayo ayaa iskuulku soo xulay ha yeeshee cidun baa soo baxday cidina way hadhaa dhamaantiin way mahadsantiin dadaalna waa muujiseen laakiin ciddii kulli nasiibku soo saaray ayaa tartankii ku soo baxday ciddii soo baxdana waa cid sheef u matalaysa waa cid magaciina sidata marka dhamaanteen waa inaanu taageero iyo hambalyo iyo nidsimaan muujino weeyaan